هل إنك هل لفر يا وكما عبد القادر عبد الرحمن أحمد حقيقة كل شيء قبل كتب لي على برعة واي إمك هالكيت شوكته hargeysa واي maxaad ka shaqaysaa waxaan ka shaqeeyaa wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Jamhuuriyadda Soomaaliland واي maxaa kaalinta aad maxay tahay kaalintaadu shaqada waa mawalada caruurta واي mawalada caruurta intee lag baad wadii imaka waxaan waday muddo 4 bilood aad baad u daayartaan malaynayaa imse jir baad 13 maxaa kugu dhaliyay inaad Hargeysa timaado wallahi dawrtu waxay ku dhaliyay waxyaabo fara badan waa koo ay ka koo tahay horta gobolka Togdheer aan joogay kama shaqeeyaan TV studio kama shaqeeyaan Hargeysa aad uga shaqeeyaan waay agaasimayaashii TV-yada Hargeysa joogaan duruuftaas ay u dhalisay inaan Hargeysa imaado sideebeed wasaaradda ugu soo shaqo tagtay horta wasaaradda wallahi dee waxa horta wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin ayaa ii fududeeyay inuu wasaaradda warfaafinta yimaado isagana aad iyo aad bartaan uga amaanaya mar walna waxa leenahay guulayso joog dalkaaga iyo dadkaagana u halgan baa leenahay diinta waa adiga iyo Maxamed Kaahin sidee isku hesheen wallahi horta dee waxa ii fududeeyay marka uu horeysay istaabka dibadda ay fududeeyay markii ku xigtayna xogeyntiisa nimco Maxamed ayaa ii fududeysay iyaduna sideebaad nimco ku soo heshay wasaaradda wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha tilmaam baan ku yimi oo sidee ahayd markaa tilmaam la iga soo tilmaamay madaxtooyada markii hore madaxtooyada u shaqo tagtay markii hore madaxtooyada ku horeeyay laakiin way suurtagal weyday Maxamed Kaahin bay iga suurtagal markaa ma iyaga ku tilmaamay yiri xagga tag iyaga ii tilmaamay nacam waay markii lagu gartay inaad reer Burca tahay markii la gartay inaad reer Burca maxaad kala kulantay wasiir Maxamed Kaahin wax fiican baa kala kulantay waay uu yaabay markii uu tagtay markii hore soo yaabay waay wali muu aragday qof intaydan oo kala leego idii shaqaysiyo oo arkay inta lindal yaraayo idii shaqaysi waa ku sababtaas aad ka yaabisay marka uu kula qaatay wasaaradda aad khusayso markaa ku gudbiyay wasaaradda khusaysan gudbiyo wasaaradda warfaafinta marka uu ka wasiiraha Maxamed Muuse Diiriye imka biyaha صح marka barnaamijka ugu xisaab badan ee siidaysa maxaa kamid ah waan ku tilmaamayaa horta waxay aad u xiiseeyeen xaruntu Shondaship waxa kale aad u xiiseeyeen Tom and Jerry-ka iyo waxa kale oo u xiiseeyeen Big Panda inta xiiseeyaan waynta maxaad kula talinaysaa nashiidooyinka iyo sheekada maxaad kula talinaysaa ciyaalkii lodkaaga ahaa gobolkaad ka soo jeeday gobolka horta gobolkaasi dee maanta hadduu nin yaro inta leeguga yimiba iyagana aad iyo aad baan horta u hambalyeynaya gobolkaygii dhallinyaradaydii aan saxaabta ahayn cid wal oo bartan iga garanaysa aad iyo aad baan u hambalyeynaya waa sax maxaad hiigsanaysaa da'daadu aad bay yartay waa 13 jir waa carruur baatay marka imaka carruurta Yurub ku nool oo kale da'daada ah waa la ilaaliyaa sax adiga wax ilaalaa ma lagu saaraayo ma ka baqataa dabada inaad u baxdo kale iyo in lagu qaato kale iyo in miyaana da'daadu aad u yareen oo aanu carruur ahayn horta middan kuu sheegaya horta marka shaqaaqa jirtaa ma dagaal jiro nacam gurigiina wad ku xaroonaysaa marka lagaaga sheekeeyo waxbaa wax qaata iyo Hargeysa oo dhanba waxa ka sheekeynayso taana wad baqaysaa maanta haddii nabadgelyadii haysto ammaankaygina aan haysto wax iga maqan ma jirto dibadda sheegaysaa Burca la ku tagaya okay marka maxaad hiigsanaysaa imaka halka imaka barnaamijka carruurta maxaad ka sii hiigsanaysaa inaad noqoto waxaan doonayaa inaan horta wasaaraddan iminka joogo inaan agaasimayaal ka soo mara agaasimo waxyeed iyo aan sida hadhow talon ugu gudbo aan agaasimo guud wasiir madaxweyne sida ku noqdo marka waxaad hiigsanaysaa inaad madaxweynaha Soomaaliland noqoto madaxweynaha Soomaaliland insha Allah hadii la gaarsiiyo wadun baad naga horeeya insha Allah marka maxaad imaka faraysaa dhalinyarada guud ahaan reer Soomaaliland gobolada dalkoo dhan degan horta maanta Soomaaliland waxa bartaa dhigay waa qabyaalad iyo balwad horta balwadda horta haddii maanta jaadka yar soo galaya dila waayo maanta la walba reer hebel buu sheeganaya ma garatay horta jaadkuna isagu balaayo inoo soo kordhiyay faa'iidooyin inuu soo kordhiyay Etoobiyana imika haddii bari u dhawayto wasiirka maaliyadda Dr. Saad Cali Shire uu xisaabinayay
wuxuu yidhi intaasoo oo kunoo lacag ayaa Itoobiya inaga martay oo dollar way dee sidaasna horta dee dhaqaalaha inaga u baahan oo wadal yaroo soo kabcayo oo dee imika 27 jirsaday misteeda 20 jirsaday waa ko iminku 30 meelaha galaya ma garatay aan waxaan leeyahay oo iga talaa dalkeena in wada guntano okay wad ma santay